الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، موضوعنا إن شاء الله تعالى ونقول دونا كيف تدعو الناس إلى عبادة الله. كيف تدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. سيدا أدعو يري سادتك إلهي عباديسا. وحان أرقني dad badan ayaan aragnay iska dhigayaan inay daaci ay yihiin, ay ummadda diinta u yeerayaan, oo culimo ay yihiin, dadka dacwada gaarsiinayaan inay iska dhigayaan, kadibna dadkii caynayaan ama u hanjabayaan ama falleexaysanayaan. dadkii ayay ceebaysanayaan ama way u hanjabayaan ama way gaalaysiinayaan. markaan dacwada diinta islaamka dadka sidee loogu yeeraa? haddii adi muslim tahay, dad ayaa kaa gaaloobayo ee murtad noqonaya, ee diinta masiixiyadda qaadanayaan, gaalnimada qaadanayaan, ee ka baxayaan diinta islaamka. dadkaas ayaa adiga kaa tegayaan maadaama muslim aad tahay. waxaa kaloo ogaanaysaa dad markay kaa tagaan, dadni way soo islaamayaan. adiga markii lagaa gaaloobo, dad ay gaaloobaan, dad gaalo ah ayaa soo islaamayaan. meeshaas waxaad ka fahmaysaa man yahdi illaahu fa huwa almuhtad waman yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan. sidaas ayaa ka fahmaysaa ciddii ilaahay u hanuuniyo ayaa hanuunayso, ciddii ilaahay u dhumiyo ayaa dhumayso. markaan sidee dacwada diinta islaamka lagu gaarsiinaya? dadkii ayaa la falleexaysanaya, ama dadkii ayaa loo hanjabaya, ama dadkii ayaa si xun diinta loogu sheegaya. waxaa ka mid ah qof ayaa dembi samaynaya oo dembi gelaya. qofkii ayaa la rabaa marka in la waaniyo, wax loo sheego ayaa la rabaa. qofkii sawirkiisa iyo codkiisa ayaa waxaad arkaysaa wadaadka inuu soo saaro meesha oo yidhaahdo qoftaan ayaa saa isaan tiri oo waxaani ku hadashay, ama qofkaani fiiriya waxaan bay samaysay, ama ninkaan fiiriya waxaan bou sameeyey, ama ninkaan fiiriya waxaan bou yidhi. codkiisa dhagaysta, muuqaalkiisana arka. saasay yidhaahdaan. dadaa arkaysaa qofkaani waa gaaloobay leeyihiin. qofkaani waa gaaloobay, waa mushrik, waa lagu dilayaa, waa lagu gowracayaa, saan baa lagu yeelayaa. horta adiga daaci maa tahay mise xaakim maa tahay? horta isbaro. adiga maadaama nin culamo aad tahay, ee caalim aad tahay, oo culamo aad tahay, xaakim maa tahay mise daaci aad tahay? marna xaakim ayaa noqonaysaaho laba xaalo ayaad ku noqonaysaa. markii maxkamadda islaamiga aad fadhisid, oo maxkamadda islaamiga aad fadhisid, xaakim ayaad tahay. nidaamkii xukunka ayaad maraysaa. ilaa maxkamaddii islaamiga, maxkamad oo koodishi banaale iyo maxkamad dimuqraadi la yidhaaho qofku wax alla wuxuu rabo iska samaynayo oo kale waxyaabahaasi kama hadlayne. waxaan ka hadlaynaa dad diinta islaamka ku xukumayaan. marka haddii tahay adiga nin qaali ah ee diinta islaamka dhaqan geliyey, oo hal u dhaqan gelinaya, ee maxkamadda fadhiyo, haddii aad tahay eena fulin kara, haddaad tahay, qofkaasi waad gaalaysiin kartaa. xukun ayaa kasoo saaraysa oo qofkaasi waxaa leedahay waa gaaloobay. markaan towbadii ayaad u bandhigi kartaa, towbadii ayaad
maxkamad ayaa soo joojinaysaa qofkii wixii oo dembi oo galay ayaad u sheegaysaa tawbadii ayaa u bandhigaysaa haddii oo kaa diido qofkii xukunkii ayaad fulinaysaa markaasi adiga waxaa tahay qaali ilaan tawbadii ayaa u bandhigtay waa kaa diiday almuhim adi nin qaali ah oo maxkamad fadhiyo oo qofkii dembi galay hor taagan yahay ayaa tahay xukun ayaa markaasi ka soo saaraysa waxaa kaloo tahay culamaa uddiin oo xagga aftida u xil saaran oo wax iftoonayaan ayaa tahay markaan xukunkii ayaa lagu dhiibay oo lagu yidhi xukun ka soo saara maadaama culamaa uddiin ee kulmay oo midaysan aad tihiin arrintan ayaa soo koradhay ee marka xukunka soo saara lagu yidhaahdo ama adinka guddigii iyo maamulkii culamaa uddiinka oo isku hadaf ahaa isku madhab ahaa isku aragti ahaay oo isku si wax u arkayay isku si wax u fahmayay isku madhabka ahaa haddii tihiin waxaa ku banaan inay xukun soo saartiin oo maxaa dhacay xukunkaas markaas daruuri ayuu noqonaya inta kale markaan ilaa maxaa dhacay hore waxaa jiri jireen dad muctazile ah dad khawaarij ah dad shiica ah ayaa jireen waxaa xukun ka soo saari jiray dad culamaa uddiin isu tegay ee haddana ahlu sunna waljamaaca la baxeen oo kitaabo caqiide ay qoreen ilaan xilligii asxaabta xilligii nabiga kutubo oo lagu magacaabo ama manhaj lagu magacaabo caqiido ma jirin markii khawaarijti ay bateen muctazile ay bateen shiicada ay badatay dadkii markaan aayadihii si qaldan loogu sheegayo xadiidka si qaldan loogu fasirayo dadkii la dhuminayo markii culimadii wanaagsanaayeen culimadii fiicnaayeen markay arkeen markaasaa la kulmay oo waxaa la sameeyey nidaam caqiidada saxda ah loo dejiya oo wixii nidaamkaasi ka baxsan ay yihiin kuwo qaldan waa la sameeyey markaan dadkaas oo kale jameecada noqdeen muctazile noqdeen wax baa laga soo saarayay culimmadaas oo isu tageen ayaa wax ka soo saarayeen ilaa al'aan markaas waxaa loo baahan yahay daaru iftaa in la helo culamo midaysan jidkii salafka iyo khalafka xufaadu islaam wadadoodii hayso in la helo markaasna xukun waa soo saari kartaa jameecadaasi way soo saari kartaa laakiin wadaad markasta meel ka soo qayliyey nin culamaa markasta wadaad meel inuu ka soo qayliyo qofkii sawirkiisii iyo codkiisii inuu meesha soo saaro yidhaahdo qofkan saan ayuu yidhi waa u naseexaynaynaa qofkan ayaa loo naseexaynaa qofkii la wacdina qofkii codkiisa la soo saaray sawirkiisa la soo saaray markaasaa leeyahay qofkaana xoogaha aan wacyigelinaynaa oo wax u sheegayna leeyahay taasi ma aha mid wacyigelina waxaa la yidhahdaa annaseexatu cinda annaasi fadaaxa naseexada cinda annaasi fadeexa dadka hortood wax lagu sheego waa fadeexa nabiyuna muxamed calayhi salaatu wasalaam maalmaha ka mid nin ayaa waxaa u soo baxay xad min xuduud illaahi ninkii asxaabtii waxay ku fuliyeen xad min xuduud illaahi ayaa lagu fuliyey xadkii ayaa lagu fuliyey markii xadkii u dhammaaday dad ayaa ninkii caayeen oo lacnatullaahi calayka iyo waxaasi adig hadal aflagaada ayay ninki dhaheen nabiyuna maxamed wuxuu yidhi saas ha dhihina shaydaan ha u kaalmaynina hadalkaasi ha dhihina shaydaan ha u kaalmaynina yidhi qofka bini aadam in la caayama xadkii laga rabay sharciga oo sheegay waa lagu fuliyey
وعايتين ودوائي سان الله عاينا محيط أمرك وقال سماها نبي أساسا أشياء عاين نوير عايتين تا وهي كميتها دنبيالك آد ووين أي كميتها وهالس markaan dacwada ummadda loo yeerayo ambiyada aan ugu dayno nabiyaalka say ahaayeen kow ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsanu ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilihi wa huwa aclamu bilmuhtadiina ادعو ير إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعدي وناكسا أسلوبيسا وعدي سيدي قفك الله دادعين لهاي وحياغا أو آمين سيهاي آديغا ديارسو وعدي حسنة لإماو وجادلهم بالتي هي أحسن هذا مركز قالدا لدوديسد أما دتك علمانيين تا لدوديسد يعني قالدا أما كوا إسلام كالشيعنا يقلدن مركا لدوديسد نوعي دونها هذاني وجادلهم بالتي هي أحسن مركا لدوديسد مد وناكسن كل دوت ها عايتمن ها حناقين ها طرفين ها هنجمين ها جوال اسمين وجادلهم بالتي هي أحسن مركز قال للدولة يسد عد والبواح اسكم مدواي حتى الشيعة ذا أيا للدولة جري معتزلة ذا أيا للدولة جري خوارج أيا للدولة جري انتهت للدولة هاي خوارج ومعتزلة والشيعة والرافضة والجهمية والزيدية نمان للدولة هاي قفك حجة كؤوب إقامة الحجج سمي حجة كؤوب قف هحناق هذه فرعون محاليري نبينا موسى إيو نبينا هارون نبي هارون نبي موسى محاليري فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا أدها له فرعون أدها قولا هذا الأدها لينا نقول ولا لو محانكو سمينا محانكو دانا سان مفيعنا سان واي سان نقنيسا نارتا لقلايا جانت أو شاكي وناك أيلادا قول لين والو عذاب يا نارا قليسا كذا واي هنجواتك سمينا قفكا والو قدليا ماي فقولا له قولا فرعون اللي قول لين لها ويبعدها لعله يتذكر أو يخشى وحابة أو مدين هيبة إنه عبصده أوني وانا قاطع أيو مدين هذا ونالسن ودها نارا لوغينيا واد عاسي قال ما سمايسي بابا ولو دريا وعن بروي هذه هنا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أسلوب أو هبلا برفيريا أو إلهي سبحانه وتعالى أو نهاي قل وحاتر هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد أيا الله هذا يا من يرزقكم من السماوات والأرض هذا يكون جواب ويان قل الله إلى جواب كرملها قل الله ده ما يقول دري وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإنا أنك أو إياكم أذنك أما سي أذنك أما أنك أما أذنك لعلى هدى مدء باهنون كسرا لعلى هدى أو في ضلال مبين
mid baa baadinimo ku jira mid baa annakii adinka mid baa baadi mid baa hanuunsan nabiga ma dhihin anaka hanuunsan ma dhihin waa nabiyuna Muhammad alayhi salaam ma uusan dhihin anaka hanuunsan diinta xaq anaka wadno ma dhihin weliba oo fi dalaalin mubiin dadka baadida waa gaalada waa ogyahay waxa baadida ah waa gaalada inta hanuunsanne waa nabiyuna Muhammad idaka raaceen oo waa la ogyahay laakiin wuxuu leeyahay in nabiyuna Muhammad oo yahay cid hanuunsan asxaabtiis ay hanuunsan yihiin ma shaki ku jira ma yaxaasha lillahi shaki ma ku jira haye waxa kale oo shaki aan ku jirin gaalada inay baadi yihiin shaki ma ku jiro مع ذلك أسلوب الدعوة محلية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين مدبع ننسل حتى محلية قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون أريق فيري إلهي وحونا الشيء نبي وحي أدهاي قل لا تسألون عما أجرمنا نبي محو إسحجي دنبيا أيو إسحجي أتي أصحاب تيسا عما أجرمنا وحان كسبنه أو ينكو دنباونه أذنك عد إذن ويدنيسو ملها قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل أنكن ما نلوي دينايو عما تعملون عما تجرمون مالهن محالير عما تعملون أيك وحالي حجي عملك واسعنان كرا وحمان كرا لازم محالير عما تعملون عما تجرمون لفظي ورمحو هاي أما أجرمنا انت محالك الربي ملك الربين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيا لبريا سيد الدعوة لو قلت أمدي سبا أيا لبرا وحكا الله غير وماش مجر أما تجرمون الله من ربو محالك الربا سيد هذا أتعلم محايا أسلوب الدعوة أيا باش تعالى سيد الدين تا أمد لو قاسيو إن لو هنجوادك صور كلا سارو عدكي لسو دي ما كاسي نسيحة ما وكاسي وحي كيني ساقفك إني هوري إلى ننكسو حن وهليا داد حن أيو هليا ننكسو في عني داد في عن أيو هليا مركزو اسكواو فريق في الجنة وفريق في السعير وهديناهم نجدين هنونك أديك مهلس إلهي أيها هنونك أديك حكمة دي دلالكي أديك سلهد أيا لغاربا وحاكا اللي هدني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت هدي أهان لهد فذن نن دبيعت حن هدي أهان لهد سيء الخلق ولو كنت فذا معك ولا دريا زنبالي يليا نار بالجينيا هؤلاء هنجبات هذه سميلها أو نندبعت حن أو هنجبات بدن هذه أهلها فضلا أسألك ولو كنت فضلا غليظ القلب هذا أن نحريص أن كجر قلبي سألك هذه أهلها لن فضوا من حولك وحكل جوج مهلهن جارك على آية لجا كرتجلها جارك على آية ولجا كرتجلها إد كل جوجتو ما أدهلهن ما عاد لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فإذا عزمت فتوكل على الله
إن الله يحب المتوكلين هذه أديك دونتي دعوة إن الوديد ذاتك أجاسيسد وحشيكت هداد دونتي فتوكل على الله ذاتك لا تشو أنا عقلي قبو أنا حق لا أنا وحن دون سمينايا أنا أقول لا أنا هدين أنا قتروي أنا أقول لا وحيق بدي مرة ذاتك ننا ما نروح لها الدون كان هدي واحد جو إسكو إمادان هاد دود اللي هذا أنا كتو أكراي لهاي هذه ما لا فيريو هذه ما لا فيريو رنتي سواي سوامال وحيت لا قرآن أن أقانا مكا آخر سنة يكوين قرآن أيان أن أقانا معناه وسوامال سيت لا قرآن أيان أقانا وحاكوين مكا آخر سنة ما يقول بأذي قرآن كأشيء مكا روا دونها قرآن واربا دين تواربا لكن هذه واحد شيء يفيد مكان ربي هدوده ما حد سمينه مكان نكاس واحد أديارسن ما دام هو أوليه هاي واحد علماء الدين كجوجان هذا اسمه إمادان وحنو أركا إن كراين كرو كراين أيو تاسم حواي وتكبر وعكين نتا أنا بقول له محاولية من كان فلزن غليظ القلب تكبر إيمان ربو اسكجر نبيالكم حيلين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون نبيالك فيه ويل هداية مردهن حتى محلية فعلي إجرامي معنى محل فعلي مع الدش إذا وحائه إجرامي دنبغي أنا إسكاله بس وأنا بريء ما دام أنا كركيغا دنبغي أنا أن لا يهي أو دنبغي أنا كركيغا أو يهي بريء بري أيان أهي مما تجرمون وحا عليك كد باب يسان وحا عليك سمين يسان أنا بري أيان إذن كأهي ساس ده قل إن افتريتو فعلي إجرامي وأنا أنا بريء بري أيان كأهي مما تجرمون وحا عليك كدن باب إنسان ما دام أنا دنبغي كركي أويهي مرك عليك كينا أنا بري أنك أنا كيا ويهاي السماء مرك أنا ماشي معك صبي عيسو دعوة الإسلام قبل فيريا حكمة دلو عليك سنايو أنا مردهن أنبيد مردهين حتى وأن شيء دونا حديث ربنا سبحانه دونا ثمامة ابن أثال مركي إسلام كلو بندي وديدي دور مرا ويلي عان سينايو نبي هشيسي لو سو لساي لو جيناي مركي أو ديدي وعلى إسكده المهم قلت لك سوقانا هذا الكلام والدي أصل سيدي قالوا عدكو قصرت ماي والدي مركي لدي كذب أسيغان عاقل أيو هاي عقل له أسيغ أيا قرتي وسوق بيستي وإمالي سي شرف كجرته أيو أسو إسلامي أو أود أنا كجرين أيو أسو إسلامي ثمامة واتكسيسين إذن مشيغان ذلك قارتيس مو يقانان بالولاء والبراء وحليل الميقانان ولا حال برقاتا أم بين أي مغلانة حتى هبرتود يا بود أيا بك برقادنا أيام المه ذاك برقادنا أيام لا أقتي سي وحوش يا ما يقان المي سي وحوش يا ما يقان وك برقادنا كليه المي أبو سي وحوش يا ما يقان وك برقادنا لين الولاء والبراء ما فهمين بقى مرك محا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مال ما كمل محا داعي نين أيا أويمد نين أيا أويمد مركو نينكي أويمد نبي وحويري سو إسلام نبي أيا دهاي سو إسلام نينكي وحويري أنا إسلامك وأنا كهنيا إني كاره أنا إسلامك وأنا كهنيا إسلامك مجعلي وأنا كهنيا أجدني كارها
aniga islaamka waan kahanaya nabi maxuri aslim wa in kunta karihan soo islaam hadaa doontid qof islaamka neceb ahaaw iska islaam necebkaada oo islaamka aad u qabtid islaamka bal islaamka hatta muslimiinta ma haya hatta muslimiinta ma waa diinta macnaha islaam iyo muslimiin waa kala yihiin laba kala yihiin islaam waa mabda'a la aaminsan yahay oo diinta islaamka ah muslimna waxa waaye qofka islaamka aaminsan ee rumaysan qofka islaamka haysto ayaa muslim la yidhahdaa muslimiin waxaa dhahaa dadka diinta islaamka haystaan marka diinta haddii dadka muslimiinta ay xumaan sameeyaan diinta islaamka markasta waa sax waa iyada way fiican tahay waxaa macquul dadka muslimiinta inay isdilayaan inay isdhacayaan inay iskufsanayaan inay dhibaato samaynayaan inay waa macquul laakiin diinta islaamka markaasi ma ka turjumayaan oo maxaa yeelay diinta islaamka sideedaba waa wanaag layluha ka nahaariha marka ninkii wuxuu yidhi aniga diinta islaamka waan kahanaya nabi wuxuu yidhi aslim wa in kunta karihan haddaad doonta diin islaamka neceb u hay laakiin iska soo islaam oo islaamka bal ku dhawaaq iskiga dhawaaq necebkaada aad wadatide nin kale waxaa la yidhi xadiiskaas waxaa wariyay anas bin malik ayaa wariyey waxaa dhacday nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiis oo wariyey laa tasubbu lamwaata fa innahum qad afdaw ilaa maa qaddamuu xadiiskaasi markii laga hadlayo oo sabbiga laga hadlayo gaal iyo muslim ayaa loo sii kala qaqaadaa weliba maalmaha ka mid nabigu wuxuu yidhi ya'tiikum cikrama ibn abi jahl ayaa idin imaan doono mu'minan asigoo mu'mina cikrama ayaa imaanaya asigoo soo islaamay weliba muhaajiran ah soo haajiray falaa tasubbuu abaahu fa ina sabba almeyti yu'di alxaya gaal dhintay ayaa la diidaya caayitinkiisa gaal dhintay abijahl oo dhintay ayaa diinteena islaamka ay diidaysaa abijahl in la caayo maxaa dhacay falaa tasubbuu abaahu fa ina sabba almayiti yu'di alxaya qofka dhintay haddii la caayo qofka nool ayaa dhibtoonayo oo aabbihiisa in hortiisa lagu caayo ma aha qofka bini aadamka walaalihiisa naagtiisa aabbihiisa in hortiisa lagu caayo ma aha caayitin ayaa la diidayaa gaalaa tahay iyo kada iska dhaaf xataa caayitin ayaa la diidayaa waxaa kaloo la yidhi oo diinta islaamka ay noo sheegaysaa weliba xadiidkaas waxaa leeyahay walaa yuballigu lmayita caayitinkaas qofka dhintay wax ma ka tarayso caayitinkaasi qofka dhintay waxba ma ka tarayso u leeyahay waxaa kaloo jira laa tu'duu musliman laa tu'duu ha dhibina musliman muslim ha ku dhibina bishatmi kaafirin gaal caayitinkiisa gaal la caayo muslim ha ku dhibina haddii qofka muslim ou yahay walaalkiisa gaal ou yahay walaalkaasi ha caynin walaalkaasi ee gaalka ha caynin aabbihiisa hadduu gaal yahay aabbihiisa oo gaalka ha caynin naagtiisa hadday gaal tahay oo la raba in lasoo islaamiya ha caynin laa tu'duu musliman bishatmi kaafirin gaal caayitinkiisa ha ku dhibina leeyahay qofka muslimka ha ku dhibina oo saasi wuxuu yidhi nabi alayh salatu salaam maa baalu qowmin qowm xaalkooda wuxuu yahay yu'duuna alaxyaa dadka nool dhibayaan
كل بيان بشتم الأموات دك انتي عايتين كودا كل بيان معناها دك انتي أي عينا يعني دب تاريخ قبر يجرو أي عينا يعني أفلقادين يعني وحك الشيء يعني ما دب أي تاريخ ساسي هيلنا اللي هي دك النول علمي سجوغان قرابدي سجوغان دكي أسيغا أو جعلايا جوغان هورتيسا هكو عينا هوتو هكو عينا اللي هي أو وحال اللي هي ما بال أقوام دد حال كودا قوم ما بال أقوام قوم حال كودا محو يهي محاواي قوم حال كودا محو يهي يؤذون الأحياء دد كنول لبيان معي كل لبيان بشتم الأموات دد كإنتين عايتين كودا أي كل لبيان حال كودا محو يهي ألا هوي لا تؤذوا هدبنا الأحياء دد كنول هدبنا هكل بنا بشتم الأموات دد كإنتين عايتين كودا هكل بنا مركز بحيث آبار هدلاي هذا المحلو هدلاي عام قوم عليه قوم هاي دد انتين نوعي دوننا أهادانو دد أي صاحب أهادين وحبي أهادين دد كاس عايتين كودا دد كان نول هكو لبنا أياليه مال ما كمده وحا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيمد نين أيا أيمد نين أيا أيمد نبي عليه الصلاة والسلام نينك وحو يمد إن وحر سيو إن وحر سيو أيو يمد ما حد عايو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سي أري فرب بدن وسي أري فرب بدن نينكي قال كاي نبي أيو يمد وحو سي أري فرب بدن وسي حول فرب بدن أيو سي وقال أرسي أو ليه أريجي صدقة كميدا أيو سي نينكي واللافتي نينكي قال كاي محور يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عداء ما يخشى الفاقة مع داعي دين تو حواي نبي والويدي أي الأديان أحب إلى ديمها متك إلهي حقيس لو جعل بنياي واتي دين تا إلهي حقيس لو جعل بنياي واتي إلى الله قال الحنيفة السمحة دين حنيفة أو حمان تكسر الإحسان توسن هذا سمحة هذا سهلك يسروا ولا تعسروا ذاتك أفضيدية أي اللي أفضيدية دين هكو عليسنا أو دين أمدا عليس يان لوغا ديجنا اللي هي وحال يري مال ما كميده نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحا أيمد أولا شيئا نين آيا نبي أيمد نينكي وحا يري بل سو إسلام نينكي وحوري أنا وان سو إسلام يا لكن سي صلاة لبرك عم بندقنا لبرك عيان دقنا بس معناها الصلاة لبرك ما كدقنا يا بالفيري لبرك عم لبرك صلاة ما دقنا يا صلاة لبرك عيان كدقنا يا نينك آيات هاي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذا سو إسلام لبلا دكا دا دونتي سو إسلام نينكي واسو إلا محايالي مركو انتو تاغين يارت مركو هورا قفكو حارو علم الحال نينكا مكولية أن دينتي إسلامك وان نعا مركولية إيه آنيغا لبلا صلاة أمبان دكنا مركولية هورت انتو تاغين maxaa ku waajibo hadda qofka maxaa ku waajibo qofka horta markii salaad dukan leeyahay soon leeyahay waxa laga rabaa leeyahay marka hore
هرت إسلام ياهي ماي حديث صلاة أو ديد قفك أو إلى صلاة مدكناية وأن سو إسلام يا لكن صلاة مدكنا دوير هذا وحالي سو إسلام يا ليه إلا ما حياله مربى هذه إسلام أو سو قاله كدي مكان التلفظ كي إسلام كي نظام كي لغة هلو كدي بنقاش متعلق قفك ما نقضه متعلق إلا علم حالك مركز كواجب آيات توحيدك أصير محو كاني صلاة مدكناية صوم سوماي وحيابا سدو كان وحالي وتعالي سو إسلام دين توا نحريس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والدعوة نصيحة راء ونحريس كجرتو ونا كجرو معنقك إي حناك إي قيل عن أهين أي أروح قفتوا سو إسلاما حتى قفوا وحوليه أنا وأن سو إسلاما لكن زكم بحناية قفوا وحوليه أنا وأن سو إسلاما يا لكن سي ما بحنايو جهاد معاذي مركان جهاد معاذي زكا ما بحنايو صلاة انت تنبان دكنائي مركورت لليه هاي موضوع مركاسي لهذا لا مبيان موضوع اسميال موضوع مركاسي على وحواي التوحيد إسلام أيال مركو عليه صلاة قامر ربع وحلا قارة مره سو إسلام اللي مركو سو إسلام قات الشيخ جتا كله مركا أساسي دعوة إسلام كله أسيا مكلا ربع مركي أو أرك إلى وحي أرك جدا مسلمين تدمان مساجد وجيدنا سعدان الدكان يعني مسلمين تدمان ويسقانا يعني قفك أساس كل شيء هذا صلاة جو قلها إلى مسلمات تهاي مسلمين تدمان ويسود دكان هذا أنا ماشي أنا فريسا دبالي ما ينقونيسا مركاسي حلقة سوحي هاين قف مسلمة ولو منافق بقى هذا مسايد كأيو كدران جري قف بنان جوغا لما أركين قف أو تعبان إسك أو صير سارن إيو قف مسافر واحد إسك قار لكن مسايد لازم هاين أو صلاة أياي لازم هاين أصحاب مركان قف كي ما بهلا يبو قف أو لا شيء كيستو كودا داه بيذكرهم هديب آلام كي أو دعوة وذكر الصعدام أرسي مكمل أو جوجا مهلاي هذه الجهاد لا آداي ذاتي وناك سنايين أو أود لهايين دقارة عن إيمان كفي عن لان الجهاد كي آدايان أرسي مكان وحوم باركيا ذات لموجيل أو أن توسنين أو منافقين أو قفكي ماشي كهرة مقالة كهرة منافقين ملو أقوان سناي أيو أركيا مركا أسا إسكبحايو لكن موضوع لغا هبلاي موضوع مركز أسي أو شيء غايبا مثلها wax is leh ma mawduuc laga hadlaya islaamka inuu soo gala waayo qofka asina wuxuu ka hadlayaa islaamkaba markii la soo galay kadib wixii la sameyn lahaa salaadii uu rabaa oo ka hadlaya oo kaala doodaya markaan gaal waaye salaad inuu kaala dooda ma ahba inuu soon oo kaala dooda ma ahba waxyaabo inuu kaala dooda ma sida asiga diinta loo jeclaysiin lahaa baa laga hadlaya hatta gaal waxa arkaysa ama nin gaalobay oo aqeedada ku dooday arkaysa ama aayadaha quraan ku dooday waxa arkay nin muslime ayaa ku dooday aayadi marka asigoo gaale ayaa aayada quraan ku soo qaadanaya adigoo muslime waad u jawaabaysaa miya oo aayada quraan ayaad u xalinaysaa oo aad ma aaminsana aayada quraan ma aaminsana oo si kasta adigu u dhaadicisid ama caqiidada si kasta u dhaadhicisid asi ma aaminsano marka waxaa rabaa hadal walaa tujaadilu ahla alkitaabi ilaa billatii hiya axsan laga rabaa hadalka waxaa rabaa oo wanaagsan si adiga waxa dhanba asiga uu aaminsan yahay si adiga aad waxa dhanba uu qasi lahayd aa laga rabaa adigoo waxaa arkay hataa aayadii aan ka siino tafsiirka aan ka seenin laakiin fikir lagu soo shubay fikirkii lagu soo shubay ayuu rabaa inuu gaalka kula doodo markaas arkaysa fikirkiisa inuu soconayno
dadku wax ma garadka waxaa ku socdaba gaalka fikirkiisa ayaa ku socda oo kii muslimka aba fikirkiisa ma shaqayno haya taas maxay keenaysaa dabaalnimay keenaysaa adoo aqoon lahayn ayaa gaalkii la doodaysaa marka hore waxay ahaayeen tusaale ku siinaya mu'tazila joogeen dad la yiraahdo shiica joogeen cilmaaniyiina joogeen ahlu kitaaba joogeen intoodaba loogama raaynin in aayad quraan la soo qaato loogama raaynin in xadiis loo soo daliishto maxaa ila xadiiska adiga aad wadatid ayaga maba rumaysnaba ama ra'yiga adiga aad wadatid aysan rumaysneen haddii ahlu kitaab ay yihiin oo nasaare iyo kirishtaan ay yihiin iyo yahuudda ay yihiin kirishtaanka iyo yahuudda hadday yihiin iyo mushrikiinta aayadda qur-aanka adiga aad wadatid maba rumaysna ayaga marka ayaga waxaa u sahlan inaa aayad ay kaa diidaan dadkan muctasilada iyo shiicada ayagana fikir gaaray wataan oo fikirkooda waxay u daliishanayaan aayad qur-aan fikirkooda qaldan waxay u daliishanayaan xadiis marka haddii adiga xadiis soo qaadatid ayagaba xadiis ay haystaan haddii aayad qur-aan soo qaadatid ayagaba waxay haystaan aayad qur-aan marka waa inaad fahantaa dadkaani aayad qur-aan ay haystaan adigana aayadda qur-aan ay haystaa dadkaani xadiis bay haystaan adigana xadiis baad haystaa markaan intee sarta ay ka qurunsan tahay sarta intay ka qurunsan tahay intee meesha arrinta maxaa qasan waa in weydiisaa qofkan aayad qur-aan ayuu xuja ka dhigtay xadiis ayaa xuja oo ka dhigtay adigana xadiis ayaa xuja ka dhiganaya sooma aayad qur-aan ayaa xuja ka dhiganaya sooma maadaama aayad qur-aan xuja ka dhiganaysid xadiiskana xuja aad ka dhiganaysid ayagana xadiis iyo aayad ayaa xuja ka dhigteen markaas seed ugu raayin kartaa arrinta marka saas maaha dadkaas culimmadii hore saasi ma ugu raynin waxay ugu raayeen oo ay adeegsadaan caqli u shaqeeyo aayadda qur-aanka caqli ku shaqeeyo u qaadima xadiiska nabiga alayhi salaam waa caqli ka dambeeya aayadda qur'aanka ee aayadda qur'aanka u shaqeynayo xadiis caqli u shaqeeya ayay haysteen xadiiska iskama qaadanaynin waxay haysteen caqli furba ilaan caqli waxa waaye qur'aanka sida baan fiiri wuxuu ka hadlaa caqliga diinta waxay tixgelisa caqliga qofka jiniga qabo salaad ma laga rabo soon lagama rabo wax ku waajibi male qofka jiniga qabo qofka caqliga qaba ayaa wax ay ku waajibaan caqliga diinta liqawmin yacqiluuna uu leeyahay liqawmin yaclamuuna liqawmin yatafakkaruuna diinta waxay leedahay sideedaba dadka fikira caqliga leh wax fahmaya dadkaas ay diinta la hadlaysaa marka culimmadii salafka iyo mutaakhiriinta dhammaan waxay ahaayeen dad haysta caqli diinta u qaadima ma aha caqli diinta ka dambaysa caqliga oo horeeya maaha caqliga ayaa dambeeya caqliga ayaa wuxuu u shaqeeyaa diinta islaamka diin islaam kale iska socoto aayad quraan anile ka saaya ma wadanin xadiidka anile ka saaya caqli dhahaaya ma wadanin caqli waxay wateen caqli anaa ma wadanin caqli waxay wateen diinta u qaadimo oo gaalada looga raayin karo xujo cadcad markii loo keeno ee xujada lagu oogo ayagiba ay soo islaamayaan shiicada khawaarijta cabdullahi bin cabbaas maxay u raayay caqli khadiija maya caaisha soo hooyadiina ma aha ha haddii hooyadiina aad soo qabsataan ma addoomaysan laheedeen waa yaabeen hooyadiina soo ma aha caaisha hanti ay leedahay adinka ma qaniimaysan laheedeen way yaabeen
وحاليري قرآن كأسكو حكمينا مركا وحان سمينينا قرآن كأنت لديها ياهي markaan inta aan saarno miiskaan aan saarno bal asiga hana xukumo oo asiga ha hadlo waa la yaabay waxaa yidhi aayadda quraan meesha ku qoran tahay ma ahane dadka ayaa hadlaayaan dadka aayadda quraan fahmeen unbaa hadlaayaan mayis wuxuu yidhi sid cali may saas maa aayadda quraanka miiskaanan saaraynaahe ayada bal hana xukunto ayada qaali hanoo noqoto wax badan ayaa loo fahansiiyey oo ay ku soo laabteen nabiyuna maxamed calayhi salaam asigoo hadalkiisa oo yahay xadiis hadalkiisa diin oo yahay hadalkii nabi maxamed waa diin wamaa yandiqu canil hawa asagoo hadalkiisa diin oo yahay asxaabta hadane waa ka dhaadhicinayo wixii uu sheego ayuu ka dhaadhicinayo maalmaha kamid wuxuu yidhi وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم أحد كينا بضع كيسة صدقة واي معنى أحد كينا حاس كيسة أو لكل مو كل أو دعو وصدقه يعني هاي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كي صدقة أو كهلا أحد كينا حاس كيسة مركي أو لكل مو صدقة واي أجر أيام عيشها تكون جرا ساسوي dadka xalaasha ah markay kulmaan asxaabtu waxay yiraahdeen ayati ahaduna shahawatahu ahad kana shahawaadkiisa wax asiga oo rabo oo asiga oo doonaya biyo u tagaya markaas miya sadaq oo keelaya oo ajir keelaya oo naagtaba asiga rabe wixii asiga oo rabe asiga waa raba oo ayada kaliya maaha ayada kaligeed waxay rabta ma aha oo ayada sadaqada siinay ma ahane ninka asaaba rabe sadaqa miyuu helaya nabiyuna maxamed wuxuu yidhi haddii qofka xaaraan hadduu ku dejiyo haddii qofka xaaraan uu sameeyo naag xaaraane oo u tago dembi miyaysan ahaan lahayn كذلك ساس أوكر آيات إذا وضعها في الحلال هذه حال وكنت جينا أجر أوليه فيري ناي محوسية وفهنسي عقلي وتسية أسوي إذا دين أيهين أو نيكرو أجر الهلا إن لا هاي السماية أجر الهلا أنا إن شيء أو صدق أي نقول ساي سماية أسوي نيكرو هذا نمكو أتكيسان وحويري قابك أجرك أو كو إيمانية أيو كدادعيي إيه قابك الدنب أو كنغناي مركا سويري بل كورما أحد كينا هدي حاران أو كدجيو أكان عليه وزر دنب ميوسن أهان لهين هدي قف كينا حاران أو كدجيو شهوات كيسا دنب ميوسن أهان لهين كذلك فيري وكذلك ولا تشبيه وسمينا سياس أوكر أيا دي حلال أو كد جينه أيا أجر أوكيليا مركا وحال روا أسلوب الدعوة إن النبي لا يقاته قرآن لا يقاته أصحاب لا يقاته قابك أمد المعاملون أين لأقاده علماء السلف قابك أي الشيعة كل الدود أين قابك أي خوارج كل الدود أين إن لأقاده ما أنا أذيك هذه ترايد معك إنه أسوء استاذ تبغى qofkaasi wuxuu helayaa dad fara badan ayuu ka helaya maxaa yeelay hadalkaada oo asiga aad u jeedinaysid waxaad ogaanaysaa dad asiga ka badan inay ku dhagaysanayaan ogow marka waxaa rabaa hadalka asiga aad la hadlaysid haddii asiga oosan qancinin dadka ku dhagaysanayaan inay ku qancaan aa rabaa oo caqli noocaas ee aad keentaa rabaa inaad tidhaahdid maya saa insaan waay sawirka qofka la soo saaro markaan lagu qoslo qofaa waxaa arkaysaa aanay duugin ou le aanay duugin markaasa sawirkiisa codkiisa fadina oo saanay tiri lagu qoslaya ama saanuu yiri qofkaa markaasaa
وأنا سيحينا ليه أمام الناس أيا قفي لو أنا سيحينا هذه أنا سيحينا ست ترتيب ثلاثة أدر هذه أدي ماشي دقنتاي اسكو مشغولة سيء الحرير اللي هي قفكاسي wax ugu dhaadhicin lahayd qaladaadku aaminsan dad badan ayaa waxa la og yahay markii la caayay dhibaato loo geystay hor u sii gaaloobeen dad ayaa gacanta u hoorinaya ogow markii qofka dhibaato loo geysto dad ayaa gacanta u hoorinayaan haddii iimaan adag oosan haysan qofka waa baxaya haddii iimaan adag oosan haysan si asxaabta oo kale kacab oo kale siin jeclahay markii konton maalin hadalkooda la joojiyay asiga iyo laba kale hadalkooda la joojiyay konton maalin cid la sheekaysato markii la waayey nabiyuna maxamed saddex qof cunaqabateed oo saaray cid salaamaysa iyo cid salaanka qaadaysa cid la qoslaysa cid la baashaale ay waayeen gaalada ayaa adeeg usoo direen waxay yidhahdeen saaxiibkaa inuu ku gooyey ayaan maqalnay ilaahay daraaw iyo dhibaato ilaahay ma ku gelinin ilaahay ma uusan ku gelinin dhibaato iyo daraaw noo imaaw anagaa kusoo dhaweynayne bal fiiri maxaa la yidhi anagaa kusoo dhaweynayne noo imaaw kacab isla markii waa faagay wuxuu dhibka aan ku jiray kanaaba iiga darnoo yidhi waxa aniga aan ku jiray oo konton maalmood asxaabta wax ila hadla xataa walaalahayga aysan ila hadlaynin lay gooyey dhibkaasi aan ku jiro see mar le rasuulka raali oo kaala noqdaa toobakeenkaasi see lagaa ogolaadaa aniga aan leeyahay haddana warkaa maa ii yimid allele kii hore kanaaba iiga darnoo yidhi bal fiir asxaabta marka qof iimaanka waxaa waaye qofkii iimaankiisa raasikh uu yahay siisaba abooska qofkaasi si asxaabta oo kale cid dhumin karta male laakiin dadka iimaankooda raasikh aan ahayn oo iimaankooda jilcan yahay waxaa loo baahan in loo naseexo naseexada iyadoo ay jirto jihaadka uu jiro ayaa hadda naseexada ay jirtay ma dhihin maanta jihaadka soo degee qofka in la tutuuga looma baahnee hallaayo mala dhihin asoo jihaadkina jiro ayaa naseexada iyo dacwada islaamkana ay socotaa oo cunfi iyo shiddo ma ku socotee naseexay ku socotaa marka adiga haddiiba xaakim aad ahayn oo nin arrinta fulin kara haddaad ahayn oo qaali go-aan soo gaari karo ninkaasi ku fulin kara haddaadan ahayn adiga dadka hasii raacdaynayne dacwada nidaamka inta aayado aan soo sheegnay iyo inta xadiis aan soo sheegnay in ka badan ayaa jirto waxaa ka mid ah nabiyuna maxamed markii maka uu soo gelayay wuxuu yidhi man dakhala albayta fahuwa aamin ninkii kacbada galo nabadgelyo ayuu helayaa man dakhala bayta wa aglaqa baabahu fahuwa aamin ninkii gurigiisa taga iridiisa soo xirto oo gurigiisa iska dhex jooga asina waa aamin nabadgelyo ayuu helayaa dadkii asxaabtii magangeli u raadsadeenne sidii cusmaan bin cafaan oo kale iyo xataa naagihii dadkii magangeli u raadsadeenne waa la magangeliyey mala dhihin nin gaale maxaa u magangeliseen nin gaale maxaa magangeli u siiseen mala dhihin waa la magangeliyey maxaa yeelay muslimiinta dhiigooda waa isu beegtoona kan ugu hooseey gabadha ugu hooseyso oo ugu yar qofkii magangeli ay siiso qofkaasi waa lagu darajaynayaa oo qofka muslimka ayaa gadaashiisa oo marya leeyahay soomaalida taas camal waxay u lehed dhaqana u lehed dhaqan u lehed waxaa ka mid ah nin ayaa wiilkiisa canaanay oo ul soo qaadanay wiilkiisa nin muslim ayaa wiilkiisa canaanay wiilkii ayaa ordaaya qof kale ayaa gadaasha oo ka maraya qofkii kale wuxuu leeyahay qofkan gadaashiida ayaa soo cunugan gadaashiida ayaa soo maray dhaaf ninkii cunugiisa oo dhalay ayaa laga celinaya
haddii cunugii xoog oo usoo baxsado qofkii wuxuu aqoonsanayaa qof cunugii ammaano geliyey ee marka xoog loogu baxsaday wuxuu leeyahay ani adiga magaankabacyi saa isaan xumaanan kaaga qaaday maxaa yeelay cunuga oo aniga aan magantayda soo galay aad ka baxsatay waxaa arkaysa naag ayaa caroonayso dadkay u tegaysaa dadku waxay leedahay naagtaani maadaama anaga ay maganteena tahay ee adig ay kaa soo oroday anaga ayaa magan gelinay anaga ku imaanay raalli ahaw ma dhihi karo sidee adigu magan gelinaysin ma dhihi karo sidee dadkaasi ugu tagteen ma dhihi karo maxaa yeelay adiga meeshaasi xumaana imaaday qofkan wixii oo kaa soo cararay oo kaa soo orday cabsideeda ayuu qabaa maadaama cabsidaas intaas la-eg oo qabo asiga wax ma halayn doonee maadaama magantan oo soo galay annagana fiiriya leeyahay markaa dhaqanka waddankaaba soomaalias ahaa iyo dhaqanka bini aadanimada nabiyuna moxamed calayhi salatu salaam diin ayuu noo yeelay diin wax ka weyn maa jira diin ayuu noo sheegay meelihii ay gaalada ku fakan karaan ay ku badbaadayaan ayuu u sheegay ninkii meel hebel tago amni ayuu helayaa waa gaalo dadka la leeyahay waxaa kaloo jiray dad nabiyuna moxamed diinta islaamka ka diideen leeska dhaafay markii nabiga oo geeriyooday soo islaameen nabiyuna moxamed oo jooga ayaa tawxiidka iyo diinta laga diiday markii nabiga oo geeriyoodayni way soo islaameen waa jiraan waxaa dhacay intaasoo qofooda hal iyo laba aan ahayn oo ridoobeen oo xataa qaarkood nabinimo ay sheegteen si sajaaxi oo kale dad nabinimo sheegtaa jira had heer meeshaas gaareen dad ridoobi ayaa jireen markii ay toobad keeneen laga ogolaado islaamka usoo noqdeen oo aan la dirin ee islaamkii haddana usoo noqdeen ayagoo murtad ah intaasoo sana gaalo ahaayeen haddana soo noqdeen laga ogolaaday ayaa jiro isla markii mala dhihin maadaama ay gaaloobeen hala dab saaro mala dhihin maadaama qofkaan tawxiidka iga diiday hala dil mala dhihin bacdamaa nabiyuna moxamed waxaa jiray qaar abubakr sidiiq tawxiid ka diideen haddana gadaal dambe iska soo islaameen mala dhihin aniga oo khilaafadii islaamka wado ayaa islaamka oo naga diiday khilaafadii taallo oo jirta ayaa islaamka oo diiday qofka hala dilo mala dhihin marka diinta sideeda waa naseexo gaalada in loo naseexeeya dadka ridoobaayane waa in loo naseexeeya dadka qaarkood waxa lagu ridoobayo ma yaqaanaanba waxa lagu ridoobaayaba inay ridoobeen mala mid ah ma ogaba mala ahaba inay ridoobeenba mala aha maxaa yeele maba soo arkinba xukuumad maamulkeeda u dhan yahay diin islaam ku xukumayso caalamka la leeyahay dowladdaas ayaa diinta islaamka tadbiiq samaysay ayada ayaa ku xukumayso la leeyahay ma aysan arkinba dadkii muslim waa yihiin laakiin wixii lagu ridoobaayey iyo wixii lagu gaaloobaayey iyo wixii diinta loo baxaayey maba yaqaano qofkii maxaa yeelay ma uusan la kulmin tadbiiqin oo sax ah ma la kulmin tadbiiq diinta islaamka oo si sax loo tadbiiqiyo oo qofkii loo yeero laga dhaadhiciyo waxa oo ku ridoobay ama waxa uu yiri qawlan oo ficlan waxa oo ku ridoobay in laga dhaadhiciyo meel la fadhiisiyo raashin la siiyo daawo la siiyo dhar loo gado lacag la siiyo ilmihiis loo biilo 3 maalmood oo xiran yahay la tashkiiliyo loo yiraahdo wuxuu ku qaldan loo sheego wili ma uusan arkin qofkii ma uusan arkinba maxkamad noocaas u shaqaysa ilaa 3 maalmood qofkii xabsi ku haysa intii xabsiga 3 maalmood oo ku jiran toobadii u bandhigta waxa uu ku gaaloobay waxa ay yihiina ficlan iyo qowlan u sheegta asi inta uu xiran yahayna raashin macaan siisa daawo siisa dhar wanaagsan u gelisa ilmihii oo
كسو تغي وبيشة سدحاس معنود هدي أسيق ظروف أي هاي سنة أو إباعات أي هاي سنة لعب في عن سياسة حكومة نظام كاسي أسميسن أو إسلامي قد ذاتك بن آدم كان مائسا أركن عمر بن عبد العزيز وحالوه هاي نظامك أو سود جيي محكمة حتى واحد الدعوة لوايب عدالة إمادي سيد عمر وحو قاري كرقيسا أسوأ أن لوارديين أو واردي أن ولنين إنا قيد هوستيس أو ساعده أمني قجر له وانا قجر أسوأ أمير المؤمنين إنا قيد هوستيس كساعده ومدي معناها وحي سايس وكلا أي لهنو وحي الدعويان دين الإسلام كو أي هايستان أي جزء حتى مركب حلو بهاي وحكومة نظام كان أردن اللي هلو قفكي كدعد عيسى وحا أرد أسيو كلفي معيهين تشكيل كالوهاي قال ايكو هايان تشكيل كدون كعقل بدن إن لو استعماله إلا أسيو قال ايات تشكيل هذا هو مسلم ما قال كعقل بدن ورقال قال ما كعقل بدن أنا قال ما أعرف الشيء دولة ما أعرف الشيء أنا دولة ما أعرف الشيء شخصي أو قال ما أعرف الشيء دعوة أنا حتى عن شيء أي كمتة نبينا محمد بيقف أو دنبابه ويحول يجري رجل حال كيس معه جاي ما بال قوم حال كود محيتاي ما بال رجال لمن حال كود محيه ما بال امرأة ناق حال كود ساسو كعبد يجري امرأة ناق دي الشيء ناق تيوا يا يقان نينا دي الشيء نيك واكي يا يقان لكن قفت مع عيسى بل الشيء جاي مركه وحان ليناي قال نيانيو ميا أديكو علماء دعوة الإسلام كتقاني كعالبا قال ميا قف مسلمة كا تشكيلنا أو كا وذناي أديكو ما أنت عقلي الدين إلى كسي مايا قال بنا سو إسلامي نيسا وحلو بانياي إنا إسلام كاسي لغا دادعيو أي لو بانياي إسلام كا لغا دادعيو وحوياي سي هادو دمادنه أي سمودهن مسلمين ساس وأي سنسان طول إلا أن قال ذا مسلمين الدين أن كسين وحيكو قردان ذلك مسلمين حجر أسود أي عابدان أو حجر أسود أي صوت شميان أو صوت نمكودان نجح مكة كيالا أي عابدان كعبدا مكة كتالا أي عابدان صفا أي مروة أي عابدان كوان مسلمين الشيغانا أي لان قالوا أنا كاين عاينايان أو عيسى مسيحيو قرا هذا إيو نجح عابدين أي نعاينايان أيكو مسلمين وحي عابدان نجح أو مكة يالا أو كعبدا إيو حجر أسود إيو لو برود أو ليلة صفا أي مروة أي عابدان وحيابها سي مسلمين أي قردان وحيابها أي قردان وحرام هذه مركز إناد دين إسلامك عقل الشقية دين كلا سعت ما عقل الشقية وأنا كنتا مركز أنت أصلا دعوة إسلامك وحن جعلها إن كنت دار منها إن كنت لاشان دعوة كنت لاشان ذلك دين إسلامك لو قنعين لها كنت لاشان أين رجينا والله سبحانه وتعالى أعلم